marka hore in la toosiyo la isku day in talooyin la siiyo haddii aan dabcan kasoo bixi weynana la yidhaahdo bal idinka naga fariista oo aan muxuu ahay cid noo adeegta aan raadsano dabcan taas ayaa aaminsanahay annagoo sidaas ku shaqaynaynana baarlamaanka xukuumadda marka la geenayo barnaamijkii la horgeeyey oo xukuumadda ay baarlamaanka u gudbisay kana codsatay in haddii ay baarlamaanku hadduu waafaqsan yahay inuu ansixiyo haddaanu waafaqsanayna kolley wixii talooyin inuu ka bixiyo baarlamaanka xukuumaddii iyo barnaamijkeeda mar hadduu aqlabiyad buuxda ku aqbalay barnaamijka waad la wada socotaan dabcan axdiga kumeel gaarka ah yacni waxaa qorayaa in muddo 5 sano gudaheed ah dalka lagu gaarsiiyo doorasho xura axsaab siyaasadeed oo abuurna kadib dastuur يعني محو هاي لو سمعيه إن سيستم كي فدرالك إلا دقن كليو ولا قصة إن مكانه دور الشدة حرته إن قف والبو يشحل عد هل كازنا يكون معته أما يكون مع السيستم كأما قاب كمانتي لغة نقمة يعني أفر دبع الشم هل كان لغة بحو صومالي حرة يعني ديمقراطية وطبعا يعني إن عدك لو سمية هي إن غفر بهالعد ليه هي إن هالكا كأبورنت أيها كل جدد وإيتها لكن waxa uu ka horeeyo howlo fara badan ayaa ka horeeyo wadada waa dheer tahay sida idinku u tilmaanteen muddada 5 sano waxa ka haray in ka yar 2 sano anaga marka hadii ay nasiib wanaag tahay iyo hadii nasiib darro tahay waxa la arki doonaa kulli maalintii talaadada oo ay taariikhdu ahayd 12 bisha labaad sanadka 2008 subaxii talaadada ra'iisul wasaaraha dawladda ku-meel gaarka oo uu weheliyo wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda ku-meel gaarka mudane cali jaamac jangeli waxa ay quraac la qaateen 27 safiir ee wakiil uga ah wadamada Yurub ee xaruntoodu tahay safiiradaasi magaalada Brussels kulankaasi waxa loo diiday saxaafadda inay goobjoog ka noqoto ra'iisul wasaaruhu waxa uu kaga hadlay xaaladda guud ee wadanka Soomaaliya barnaamijka dib u heshiisiinta iyo guud ahaan Soomaaliya sida ay ugu baahan tahay in ay gacan ka hesho caalamka gaar ahaan midowga Yurub galabnimadii talaadada ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisu waxa ay galabtii talaadada ahayd kulan la qaateen guddiga baarlamaanka Yurub u qaabilsan dhinacyada nabadgelyada xuquuqul insaanka iyo horumarinta muddo 30 daqiiqadood ah ayaa su'aalo kala duwan lagu weydiiyay xarunta baarlamaanka Yurub ra'iisul wasaare Nuur Xasan Xuseen Nuur Caddana waxa uu kaga jawaabay su'aalahaasi oo dhammaantood ku saabsanaa Soomaaliya sida loo taageeri karo si wanaagsan oo ay u riyaaqeen mas'uuliyiintii ka socotay baarlamaanka Yurub ee su'aalaha weydiinayay iyo kuwii dhageysanayayba habeenkii talaadada saacadu markay ahayd 6 PM ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisu waxa ay kulan gaar ah oo albaabada u xiran ay la qaateen madaxa horumarinta ee midowga Yurub ninka lagu magacaabo Louis Michel iyo ra'iisul wasaaruhu waxa ay ka wada hadleen arrimaha Soomaaliya ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay Louis Michel waxaana uu sheegay inay ku faraxsan yihiin midowga Yurub tallaabooyinka uu qaaday ra'iisul wasaaraha intii uu joogay magaalada Paris waxa uu socdaal ku soo kala bixiyay meelo kala duwan oo taariikhi ah ku taala magaalada Paris waxa kamid ah taalada ay caan ku tahay magaalada Paris ee la yiraahdo Eiffel
isama falkeena wadan iyo sheego nin lagu saxdo saxan ilbaasida saxan nin lagu saxdo saxan haseexan 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 kahor inta aanu ra-iisul wasaaruhu tagin wasaaradda arrimaha dibadda ee faransiisku waxa uu sii maray safaaradda soomaaliya ay ku leedahay magaalada baariis halkaasi waxay isku arkeen safiirka soomaaliya Saciid Faarax iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan saxaafadda iyo weliba safaaradda Soomaaliya lagu saxdo saxan haseexan 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 soo jeedo waynu feejigo wuxuu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu tagay UNESCO xafiiska ay ku leedahay magaalada Paris isagoo halkaasina kulamo kula yeeshay saraakiil ka tirsan hay-adda UNESCO iyagoo ka wada hadlay dowrka ay UNESCO ka qaadan karto xilligan in la samata bixiyo shacbiga Soomaaliyeed mas-uuliyiinta UNESCO iyo ra-iisul wasaaruhu fadhi ayay wada qaateen iyagoo isweydaarsaday talooyin kala duwan waxaana ra-iisul wasaaruhu uu ka codsaday hay-adda UNESCO iyo hay-adaha kale ee qaramada midoobayba inay xilka ka saaran Soomaaliya ay si hagaagsan u gutaan ayna garab galaan dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Soomaalidii midowdo saxalkii baxayo tamaatay Soomaalidii midowdo saxalkii baxayo tamaatay nin lagu saxdo saxan ilbaad saxan nin lagu saxdo saxan haseexan 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 soo jeedo waynu feejigo kulan albaabada u xiran yihiin ayuu la qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ra-iisul wasaare Nuur Cadde waxaana uu ka dhacay kulankaasi xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ay ku leedahay magaalada Paris waxaana kulankaasi kadib labadooduba sida caadada u ah mas-uuliyiintu marka ay shirar gooniya qaataan waxay la hadlayeen saxaafadda shir jaraa'id ayay ku wada qabteen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska uu ku leeyahay magaalada Paris waxaana calanka loo suray Soomaaliya ra-iisul wasaare Nuur Cadde iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiskuna uu dhinaca ka surnaa calanka Faransiiska ugu horeyntii waxaa hadalka qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska oo uga mahad celiyay ra-iisul wasaaraha martiqaadka uu sameeyay sidoo uu aqbalay iyadoo Faransiiskuna ay sheegeen inay soo dhaweynayaan dadaalka uu wado ra-iisul wasaare Nuur Cadde iyo dawladdiisa waxaana uu ka hadlay arrimo kala duwan oo muujinaya sida Yurub iyo Faransiiskuba ay u daneynayaan arrimaha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa ku hadlaya af Faransiis kadibna waxaa hadalka qaadan doona ra-iisul wasaare Nuur Cadde oo isna af Ingiriisi ku hadli doona taa oo ay ugu talagaleen inay saxaafaddu wararkaasi tabiyaan wasaaruhuna waxa uu si weyn u amaanay Faransiisku sida ay u daneynayaan arrimaha Soomaaliya isagoo mar kale ka codsaday caalamku inay taageero u fidiyaan shacbiga Soomaaliyeed ee dhibaatadu ku habsatay kuwaasi oo qaarkood dhibaatooyin fara badan iminkaba ay haystaan